si toos ah idinkaga soo baahinaya stuudiyaha magaalada London. barnaamijkan caawa waxa marti noogu ah abwaanka amaba halabuurka weyn ee Cabdilaahi Bootaan Xasan Kurweyne. Cabdilaahi Bootaan waxa weeye nin suugaantiisu ay batahay oo suugaantiisana inta dambe amaba waayadan dambe aan idhaahday ku fadhiisiya dhaqanka loogu yimid wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Cabdilaahi baan u daynayaa inta kale laakiin waxaan jeclahay barnaamijkan inaan ku bilaabo buug soo baxay bishii February aynu ka soo gudubnay. buuggaasi oo abwaano ka soo jeeda quruumaha laga badan yahay ee ku nool wadanka Ingiriiska amaba dadka asalkoodu uu yahay Afrikaanka iyo Eeshiyaanka. markaasi loo farayay in suugaantooda ay ku soo bandhigaan iyagoo cabiraya midabka casaanka. buuggaasi waxa la yiraahdaa red amaba casaan. Cabdilaahi Bootaan gabaygii uu ku darsaday buuggaasi ayaa waxa uu ku soo baxay buugga ugu horeeya ee buuggaasi. Cabdilaahi ku soo dhawo horta Universal TV. buuggan red amaba casaan gabaygaad ku darsatay dabcan isagoo af Ingiriisi oo uu turjumay Martin Orwell oo jaamacadda London ka dhiga afka amaba luqadaha Soomaaliga iyo Amxaariga ayuu halkan ku qoran yahay. laakiin isagoo Soomaaliya casaankii maxaad ku tilmaantay? horta intaan waan u gudayay waxa weeyaan anigu 4 sano la aruurinayay reerkaas waa buuggan gabayada ku guduudka waxaa doortay ninka Wama Davis la yiraahdo oo Mareykan madow aba may gabar baad samaysay markii hore asaga ka codsatay in maxaan ku yiraahdaayay ereyga guduudka kaliya laga gabiyo oo dadka madow oo Britishka ay ka gabiyaan waa red oo guduudka marka 4 sano la aruuriyay waa garan kartaa ereyga baa laga hadlay wayada ku yaalaana waa ilaa 8 qof baa ka qayb qaatay way dad waa weyn baa ku jiro ilaa 50 sano wax qorayo oo qaar bilada heleen oo maysi anu maalmihii ugu dambeysay baa nin Maxamed Daahir Afrax igu dhiirigeliyo war ka qayb qaado waa gudoomiyaha been baa yirbarniyo ma ka qayb qaado war guduud hadee gabay guduud kaliya laga hadlayo wax looga yiraahdaayo markii dambaan Martin ma wax 20 daqiiqo wax isku duway waxa weeyaan Martin ma tujo waa dir maalmihii ugu dambeysay marka anu markii waxaan iska cabiray bal guduudka sida anagu dhaqan ahaan waxaan loo dhaqaano Soomaaliya meeshan waxa la qof walba wixii maskaxdiisa ku soo dadku waa kala dhaqan qaar baa meeshan waxa ku qoran guduudka ay u yaqaanaan ba xisaab number baa markii guduud bay maqlaan maskaxdooda number baa ku soo dhacaya oo wadamada Scandinavian qaar kamid koonfurta America marka iyo adiga America dhaxayta maqaan adigu marka anigu guduudkii maadaama dad fara badan ay ga horeeyeen xogaa waa yar baqay waxaan isir bal array iska hormari horta oo waxa weeye iska dhaxdhicin meesha marka yar baan koor waxay garbasi man dad noqon maayo oo gada faraha weeyaan garaadkiya aqoontiisa ya qofba golaha keenay intay gaartay gaaban balan galabta faallay intay yar intay gaartay balan galabta faallay marka guduud waa wax kala guura waxaan isku meel aadayn guduud waa wax kala guuro kolba geesti laga eego go'aankiisa lagu qaato goortii qurux la sheegayo ka galaya qayb door leh goorna gowrac iyo dhaawac xinjir gobol ku sheega marna goob halaagaalo hagelina ka joog weeye marna tala la soo gaaray go'aan diidma lagu muujo marna goob dhakhtar joogo gargaar samafal ku sheegta marna gabar la guri geyni faraheeda lagu giiro goor sheegta kaan haysan in habeenkii uu guuray astaan lagu gartaa way oo gawaaga markuu soo baryahay markii baadiyaha la joogo soo gududanaya goor sheegta kaan haysan goor sheegta waa saacadii goor sheegta kaan haysan in habeenkii uu guuray astaan lagu gartaa way inaad bari ka soo gudubtay oo dhulkaas uu xirta inaad bari ka soo gudubtay oo goboladii hawdka iyo galkii aabud waa gaartay astaan lagu gartaa way waa dhulkan dhoobo guduud ciidaas markaas waa xuduud baad ku garanaysaa oo adoo lugeynaya lama ma jiree xuduudtaas gashan garanaysaa astaan lagu gartaa way haddaan xumad gubtaa haynin gooba nabar biskoonaya rajo loo gutaa way meeshaas marba neerska ka shaqeyn jiray nabarku markuu soo biskoonaya laba guduud baa jiro marna waa la sign of infection marna sign of healing way
marka sign of infectionku waa haddii kulay leedahay waa infection marka caabuq waa caabuq bay leedahay haddii dheecaan haddii leedahay kulay jiro haddaysan kulay lahayn boogtu guduudna soo hareereeyo waa biskooshisu marka haddaan xumad gubtaa haynin gooba nabar biskoonaya rajo loo gutaa weeye guduud aan ka go'in gacanta gugaan iyo cibnikii goostay astaan lagu gartaa weeye gugaan yicib yicibnika yicibaalka yicibka la yidhahdo geedka uu ka baxay gud baa la yidhahdaa geedka gudkaana laba nooc uu kala baxay midna waa la suuray midna muqlo marka ninka yicibka gura oo miraha yicibku waa miraha nina maxaaro waxaan arkay hadda inaa markaada la weeye wuxuu sheeganayaa yicibka geedka gudkaana wuxuu leeyahay english yicib waa english buu leeyahay maqaal internetka ku sidaa marka waxa weeyaan macal geedkii magac kale ku sheegaya wuxuu leeyahay geedkaa yicib la yidhaahdaa mirahana magac kale u bixi marka waxaad moodaa in dhaxal wareeg u socdo marka waxa weeye qaniimo geedkaa yicibkaa qofka gura miraha guduud buu gacanta kule inuu xoola haysto waa la garanaya waayo jiilaalka waxa weye gacanta guduud baa ku haraya marka guduudaan ka go-in gacanta gugaa yicib ninkii goostay asaan lagu gartaa weeye goolaad ciyaareedka marka inta hore iska Soomaaliya ahay daaradii maadaama British la yahay waa wax lagu dara goolaad ciyaareedka garoomada la soo buuxso goor mooyaane kay gashan Arsenal way waatay goor ay way tahay meelaha jirto oo meel kale ku ciyaaraysa maahay shaatiga guudan Arsenal daris baana kuwa guudan jira Arsenal baa darisnayo darisnimadan maaragtay goolaad ciyaareedka garoomada la soo buuxso goor mooyaane kay gashan Arsenal way wuu yiri ninkoodaday ilmo guuxay ama arag gubtaa hayso ama gama hurdadii waayay indhahaad ka galataayo guduud baa ka soo muuqda anigoo aan wada gaarin guduud waxaan ka garanayay intaan hadalka soo gooyo gabagaba afeerkayga weer guraanad aan reebo guduud guray madow weeyaan iri ergaas ku qas guduud guray markuu qalalo igoo kale dadkooda dadkeeda gabay buugta qorana black British baa leeyahay marka guduud kasta ay si guduudnaadee markuu qalalo guduud guray madowey ku dhamaanaya waa gabay qiimale weeye waxaan filayaa daawadayaashuna inay arkayaan waxa weeye gabayaagii ka qayb galay buugaagta buuggan red aan idhaahdee gabayaagii ku biirsaday tixaha oo dabcan kuwoodii af ingiriisiga aan ahayn sida gabayga cabdilaahi bootaan oo kale oo af soomaali ahaa markii dambe lagu turjumay af ingiriisi waatay cabdilaahi laakiin markan may ahayn markii kuugu horreysay ee tixa tirisay ay ku soo baxday ama buug amaba wargeysyadoo kale oo haddaynu eegno buuggan oo kale oo isaguna dabcan sawirkaagu uu ku yaallo waxaan filayaa daawadayaasha qudhoodu inay wada arkayaan buuggan 2006 ilaa 2007 ayaa waxa soo saaray duqii hore ee magaalada London ee Ken Livingstone gabayaal fara badan oo meelo fara badan oo caalamka asalkooda uu ka soo kala jeedo ayaa sida aan ku warqaatay tixa ka tiriyay magaalada London iyo sida uu astayn lahayn ama tilmaantay ka bixin lahayn gabaygaad ku darsatay muxuu ahaa anigu waxaan ku darsaday markaan magaalada soo galay kii aan tiriyay markaan 2 asbuuc joogay 2 asbuuc markaan joogay niyo qof meel buu ku soo dagay anigu meeshii magaalada ugu buuq badnay meel aan ugu soo loogu tala galay markaan 5 sano joogo in la aan tago goorad ka bilow inaan qaraabo ahayn baa halka deganaa wuxuu deganaa halkan maartay bikidii lafti station galin isu deganaa waa meel zaxmada habeen iyo maalin waxa istiimeelaha bartama magaalada London waxa laga sheekan kara ma wixii baa meel alla meel u socdaan iyo meel ay ka socdaan marka gabaygu wuu dheeraayo waa soo bariyaba baaqatiyo baafor laayimane barasha waxay ku furtaa baydadka xirane bartamaha magaalada London balan ka faalloodo waa baac misna waa badweyn laga baxay waaye barta leesta bikidin intagee booqasho galay biyo yaadan kaga bogan kareen bari warkiis daay ummad balowsan baag weyn sito badi dalxiisaya oo boow ka bayra fahmay yaadan ka baxay ha benefit maskiin qaata oo banaan yaala bariya waa guduuta wala horan iyo biliis change oo banina loo tuurahay yaadan ka baxay booliis istaa kugu hayo baaris kugu booba oo bugiya xashiis raadina yaadan ka baxay shimbiraha badarkiina oo baayo dhogoroobay oo bar rafta gurahaya yaadan ka baxay shimbiraska kuwa tafarka wala bartamaha magaalada London nimbar waaqa haysto lanaan BM kala xirtay waa baawur BM W nimbar waaqa haysto lanaan BM kala xirtay oo baarkin googoobeeyay yaadan ka baxay bartii aad isoo baaskiila nooc kala oo beesa laga qaato oo balbala la fuulaalay yaadan ka baxay
bartii aad istaagtaba kaa maraa beegsan jihadaasi baldan iyo wareer maalintaa waadan ka baxayn wey business ganacsi baan moodayay bashuriya iibi balse baab qarsoon baa jiro lala bareerayn meesha laftigeeda baaba qarsoon ayaa jira ama business waayaa maqli jiray ingiriisi iyo Soomaaliya is ganacsi oo haysta ganacsi waa weyn shirkadaha halkaas wax kala haba laga hadlaya business ganacsi baan moodayay bashuriya iibi balse baab qarsoon baan jiro lala bareerayn bas iyo tareen buuxa oo boosna laga waayay balan iyo shaqana aad lahayd buuxda iyo qaaran haddaad baal ciriiriyo gashiya biirta lagu qoolmo adigoo bastaa jooga oo bixisa doonaya isburbuura goorta u dhacay yaraha baaleeyo barxaysiga kolkaad weydayaad bawda laacday bilii sorry weer barokanay watulluna inaa cidi ku orayay u badatahay dadku biisiga wada yahay badi markaad eegto buuq bay ku wada fooraraan baybar soo baxay mise way isbeeqaaqayaan sida basaaskii saas isu eegay hoosta indhaha hoosta joraalka waa akhriya ayuu akhriba u haystaa laakiin waa weey hawshan waa la socdaa dadku biisiga wada badi markaad eegto buuq bay ku wada fooraraan baybar soo baxay isla way isbeeqaaqayaan sida basaaskii oo baasha hoosiyo ishay balax ka siiyaan kolkaas laba bahdayda timaad yaa buuqul ma laba Soomaaliya soo fuulay meesho shib ah way kolkaas laba bahdayda timaad yaa buuqul ma gashay bulankii isku baxaya kolka boqol la mooday marka hore bacba iga fuuq bacdu weerarada dambe bacba iga fuuq marka hore bacba iga fuuqdo waan u bogayahay markay sii badsaan baan dhahayaa bas ka dhahay biin iyo xumaan kama ahay waa baxaaligay afkii aan bayaan loo fahmayn looma sii bogay bartiisu yaga ruux noqdaa maal ma biirsaday badowna waxaad ka tahay daawadeed barasho weeyaan daawadeed hadaawi kala male waxa dad ku tahay barato ma hane waa kala male afafkaani waxa in la barto ayaguna waa kayaga bartaan si la isu fahmo marka gabaygaasi ma aha oo dhanbu tilmaan ka bixinay laakiin dadka waxaad ku dhiiri gelinaysaa isdhexgalku inuu yahay aad iyo aad oo da qurux leh hay way Cabdillah intii sugaantaadu aanay toos u gaadhin bartamaha magaalada London waxaad ku leedahay makhaayad dabadeedna idaacad baad ka furtay idaacadda marada huwan way hada taana noo idaacadda horta waxay ku bilaabatay markaan halkaan imida ugu horeyso qof waxba ka keena markaan aan ka hadli doono mawduuc leeyahay muunso oo aan maansa ahayn bay horta xaaladida ku salaysan muunso maxay noqonaysaa muunsadaas niyo marna la galab maahan wax laga dhamaanay ma muunsadu waa wax ma garanaysaa qofku Soomaalidu waa wada gabiyaa waxa way ummadii gabiyaa waa gabiyaa ma yaa waa ku jira xaqiiq waxay tahay waxa weey yaaba fiiladii aan meeshii ka taaban waad muuqanaysaa anigu markaan Soomaaliya joogo Afrika iyo dal waxaas dan kama lahayn laakiin halka markay timid duruufta waxaan baartayba ma duruufaha ku gelinayba inaad iska urgufta moogta waagii ugu horeysay tiriyo waxa ku talinay wala noqono waliba caruuraha iyo markaan arkay waxay dhiiranaha saxiyo doohanaha Soomaal ee u dhoofay dibadda ay dadku waa dhiiranay doohani marka mar walbaaba dhiiranaha baa doohanaha toosiya oo haga marka hadii dhiiranihi saxo ma doohana ka filisa halka la weeyay marka waa dhiiranaha saxiyo doohanaha Soomaal ee u dhoofay dibadda cayrtu dhaga wareentay aan dhabar adeegina isu dhiibay nimanko dhawaaq bayn leeyahay qorooyin dhaxal wareegnay wardhalaanka celiyaha ku dhalna kuwa kale gabaygaas waa dheera xaqiiqatan marka dib hadalka loogu noqdo macna maanta sameyn maayo si dambe wad bedeshay waa ka baxayo laba arrin horta intee noqonaysa way tee leeg waxa aad leedahay ma badna talada xagal uu noqon waa run marka hadda taas u jiray halkan ay joogno warsee wax ka yeelaa eebaanaysa dad kale dad baa wuxuu sheegi jiray abwaana ilaahay umadaan abwaana waa weyn iyo koox waa bari leeyahay illa gobonnimo doonkiina ayaga dadka waxa tilmaami jiray markii waxaad moodaa burburka markii dambe waa bari iyo abwaanada iyo systemkii waxa weeyaan waxbay ka duniyeen intay doonaha ka qaataan 20% 10% wixii doonaha la siiyo waxbay ku leeyihiin sida Cabdi Maxamed Amiin ba uu sheegay waxa weeye marka ayagii baan anagu hadda wax sheegnaa ka maqli maayo ayagii baa markii ugu horreysay ku bilaabo waxaan idhi abwaaniinta waa weyn iyo heesaaga waane waa bari la baxayo Soomaali weyn iyo way haysta geesko wardi halista geliyo wardigii Suudaan wardi halista geliyo luuqada wadanigiyo shaqay laba wadaagtaba waad naga helaysaa waad naga helaysaa wax jiriyo waxaan jirin na waraabin jirayo wareer bayn leeyahay wan weynoodu loogtiyo wadaad wali ma ka cuna goorta reer ku wacaya oo kolkii aad wareerto weelkaagu maran yahay aan ka warwarino wardi ku tufayno weyno ku bariyayno ka weecanayana wala laba amaanay dad salama weeyo shoo wasaas lagu ma beeray wala waaniyaa uun hadii aad wax dheerto
وهو وصلنا ورابيه ودعي وكي دلاشني وهذا عيارتي وبل هداتين يرجدي وهذا عيارتي ويقول تويسان ورنكي أفيسا ونهي دي كلا شري كل كاد وجر اللي قدين وح مجرد الوقتين لو وحي صدورك أنت هذا ودور هيستين وركد داية ما دور وما كلا وشعدين وري أخي بلودي قبل بعض وقتين وويدو سلاحيري بعد دليل واضح نقونه أفكو لو ولا هي ويقول الروح ذاك هذا أفكني حبضك اللي أمدنيس مركا إذا عنده حكاية بحثة أفكو اللحوق يا أفكو اللحوق يا مقلقة تروح إليه هذا دليل واضح واحد نقول ويدو سلاحيري أفكو لو وهي ويقول الروح ذاك هذا كل كاد وجر اللي قد بقولي كل كاد وجر اللي قدين هل كاس إليه وعدي بقى وحو أوران ده وحا عن روح كوان توبة خلاص توبة سوى جهاية واحد يصير نقول إما وذر كعدان ورادي ورلانيو وريال من نقطة dadku waa walaale ma wada jir doontaan marka waa 10 sano kooy 10 sano ka horweey idaacadiina hadda ku jiraan waa mid aan gool wax ma xeershayaalkan warka tabiya maantana waana maad u celisan ilaa warku wuxuu leeyahay meel la dado meel la xeeriyo wax laga soo reebo hatta hadalka caadiga waa lagu raaxaystaa ma geedo waa inuu yeesho bismillaahir rahmaanir haddii warka dhalal musalka la soo qaado deedimay oo Soomaaliya isku toosnay asagii waan waxba la xeerinay dee waa uu sii burburi marka wax ma xeershayaalkan warka tabiya maantana waana maad u celisaan dadku waa walaale ma wada jir doontaan wasaqooyay magaye waxay ma qasaashaan buu way ma qasaashaan awu magaciida magaciida magac ma noole adu arintiisa u socotay idaacadii marada soo socotay idaacadii markii la waayay idaacada marada huwan oo magaceeda markaa hadli ka hadli doonaa yaa soo baxday mad waxoogaa yar ka taabatid idaacadani waa idaacadda marada huwan oo alaaba aad ka dhagaysataan mawjadaha dabiiciga oo ku yaala guryihiina iyo meelaha aad ka qaxwaysaan idaacadani waa idaacadda adduunka ugu daada weyn ugu shaqaalaha badan uguna kharashka yar waxaynu ku hadashaa af walba adduunka looga hadlo idaacadani ma isticmaasho warlaliya satellite iyo qalab kale misna warkeedu meel walba waa gaara idaacadani barnaamijyo aad fara badan baa ka baxa waxaa ka mid ah barnaamijka la yidhahdo boogadhaye balaara salaadsi baraara salaadsi balaaru salaadinaya boogahan ugu dhahaya wax ba'ay sii bastira maaha wixii sii baaba'ay in la sii bastira maaha boogadhaye baraara salaadsi barnaamijka carruurtaada wax ku yeelayaada oonay carruurta lagu leeyahay waa ognahay carruurta waa laisla leeyahay waxaad ka hadlaysaa dhaqanka halkaan baan hadda ka hadlaynaa midkan boogadhaye baraara salaadsi halkaan iyo waddankiibu ku wajahayn kan carruurta ku socdaa barnaamijka afwareen baa ka mid a oo alaaba bal asbuucaas erayadii ugu adkaayay saxaafadu isticmaashay baanu dib eegis ku sameynaa annagu maadaama afku waa wixii la isku fahmayay afkuna sidiisaba waaba raaxo oo wax ilaahay dadka hibo u siiyey oo dee waa waxa ugu wanaagsan af la'aanta waxaa socon haddii afkii marka nala ka soo galo su-aal baa maalin dhow idaacadda marad hooday weydiisay waa maxay soomaalinimadu soomaali maxaa ka dhexeeya nin la yidhahdo saalax oo hollywood halkaa ka shaqeeya idaacadda uga wakiila yaa dad badan weydiiyey markaasay kulligood ay leeyihiin afkaan naga dhexeeya dhaqankaan naga dhexeeya dhulkaan naga dhexeeya kulli nin ay markaas lahaayeen wax badan kuma jiro dadku way iska xukumaan dadka waa xaqiiqa baa wuxuu yidhi inaashimada waana ka gudeen intaa un buu yidhi muxuu yidhi inaashimada markii dhammaaday baa ninku socoshay war ninkaas odaga ah hadal buu yidhi hadalkiisana lama qodobaynine qodobka ninkaas filmaa la weydiiyo ninkii baa isku waxbaad sheegaysaa hal qodob baan ku darayo iyo nacasnimaduu yidhi wuxuu yidhi haddii dhul af ka dhexeeyo dhul ka dhexeeyo diintu ka dhexayso arigu ka dhexeeyo maxaa laysku hayaa waa inay jirtaa wax kaloo ka dhexeeya nacasnimada ku dariyo iyo nacasnimada soomaalinimadii afkay kusoo hartay dadkuna sidoodaba hadda waxay meeshii u dambaysay usoo hormariyaan madaxweyne ha noqdo waa baaba'anay aanu midowno xaggee ka bilownaa laguma daro waxaa somaliland calan bay haysataa leedahay puntland waa state shabaab baa halkan jooga halkan waxaa jooga ururo kale xagga dawlad baa jooga ciidamo ajnabiyaa jooga marka aad leedahay aan wax qabsanno dee intaa waxa kulmin kara meesha laga bilaabayo dadkiina aad qudbaynaysa aad wax uga sheegayso sababad u tilmaanta maaha haddii kale hadal iska socday noqonaysa hadal iska socda anigu waxaan isku soo jeediyey horta danta guud wax la yidhahdo inta naga dhaxaysa aan ka wada shaqayno inta naga dhaxaysa wixii faraqay horta aan xisaabtaniyo buug ka qaadano maxaa aniga cabsabaan naga dhaxeeya horta aan xisaabino inta naga dhaxaysa markaa xisaabteeda helo intaa aan ka wada shaqayno inta kale halkaa dhigo aan halkaa dhigto xisaabta idanta guud horta waxaan la hubaa waxyaabaha waxbarashada iyo caafimaadka ku saabsan soomaali waa ka dhexeeya reer ayaan dhaweyd idaacaddu maray baaritaan samaysa hal qoysaa waxaa laga helay ilaa boorama ilaa iyo xuduudka kenya waa hargeysaa laga helay garowe gaalka iyo hal faamil ah
yaa intaa dad ku kala fiirsan kulligood waxay wax la qabaan caruuraha iskuullada ay dhigtaan meel walba meesha ay joogto bay la wadaagaan maaha inay maamuladaasi waxaa shaqo ku leeyihiin marka danta guud marka mabdaga adeegsanaynaana soohan baa la yidhahdaa in laysaga soohmo inta aan isaga soohmi karo 2% 2% ilaa 80% ilaa 80% 100% ma jirto marka middan loo soo hormarinayo oo midnimada aho waxaan qabaa inay ugu dambayso iyo tii ugu dambaysay loo soo hormarin war intii naga dhaxaysay annagoo aan ka wada shaqaynayn yani mid aanan isku waafaqsanayn baa haweeney bay hadlaysaa see ku soconaysaa marka ku soconaysaa inta aan ka midaysana degmo walbaaba war degmadaana wada degannahay maxaan ka wada shaqaynaa hebel ka bax labadii maamul isu dhow inta khilaafka halka la iska dhigo inta laga shaqayn karaa laga shaqeeyo reer London baan nahay reer Yurub baan nahay waxaan ka wada shaqayn karno oon ka midaysannahay aan ka wada shaqayno inta differences ya Abdullahi waynu googoosanayna sheekada suugaantaada laga geeyoon laakiin imika waxaan jecelahay bal haddaynu qadar ka daawano tababaradan caruurta iskuulada ee waqooyiga magaalada London ama magaalada London aan ku noolahayba aad u samayso gaar ahaan iskuulada ay dhigtaan caruurta Soomaalidu si dhaqankii bal waxoogaa intii lagu soo dabaali karo lagu soo dabaalo bal hadda daawadayaashuna hay nala arkaantaa واتي عبد الله ان مقال كاين aragnay maxaad baraysaa caruurta Soomaalida caruurta waxaan barayay horta school dugsiga hoose ah oo kamid ku yaala marka waqooyiga magaalada London waligeed yaalood waxa sanad walba waxa la sameeyaa mar xaflad iskuulka la xirayo ama bisha kowda bisha shanaad May oo kale iyo May day wax la sameeyaa caruuraha kale marka ama Bangool ha noqdaan ama magista noqdaan waxyaabo ayaga ay leeyihiin oo ciyaarahoodii iyo oo wadaniyadoodii iyo dhaqankoodii iyo dareensiinay sameyn jireen anu marka macallin Soomaali ahaan baan ku tagay laakiin markii waad dhex gashaad ogaanaysaa waa xaqiiqo ba taja waa socon way oo wax ka dambeeyo wax riix ayaa ka dambeeya halkan waxa shaqeynaya waxyaabo cartoons ilaahdaan oo caruuraha sawirran hadlaya waxa soo dib qalab oo la daawanayo wax weeye marka caruurtii waxa ka ay bartaan waxay sugayaan level ah إلا إسكول كبير شو قامت وحكه هو سيا أو ده سمورات بقول يا ضال تمادو أو أنا يهدنا مرة وواحد يكون احترام وما يقول يتجانا يداون يا أنا هين أو ومشاكل كذا نقطة مرة مان مركا إن حركة هذا اللي قدره أو وحي ياري لا اللي فوق مدة كلا هسي هو الصومالي جو ما أقول أنا لا ده هو ولا نقوله ده معنا وصلنا منيش ما حد صلنا مركا أصل وعي تحسيد ذو بدش هذا وحنا بدلي أنا أولمبيك كذا ورد الصومالي ده أنا وحنا أركي يعرفنا والله ما وحبي لا هاي أركا بري أفريقيا كيني ورد كاز بمشى جان توفره ويقول لي فرصة ورد كي أنا كوبي رجالينية نيجي كلي هو لو ده إنكار الصومالي ميل جار ورد كي كان عبد بلوها ويقول أنا سوج عبرونية يعرفنا ودية ألف بعدي حسابتي أنا كل حسابينية أيام waxaan u sameeyay heestaas ka bacdina ciyaar baan waa in ciyaara loo sameeyaa caruurta ay ku ciyaarayaan ciyaartaasi waxa marka meesha ku marka wadarkiisa war aadan beelay war aadan orodka marahuwan olympiga ciyaarta marahuwan adiga ku fiican marahuwan malaylis aadid marahuwan afrikiyo dalkeeni marahuwan iglan maad u dheeshid marahuwan marka afrika iyo dalkeeni Soomaaliya hadaan u ciyaaraytaa iglan dalkeeni u ciyaar markaasuu leeyahay ubaxo marahuwan ubaxay wanaagsan marahuwan mahadsanid abaayo marahu
arrinkaadii siisay maraahuwan awal baan jeclaayo maraahuwan had baan u qaatay maraahuwan ayaanaan fogaynba maraahuwan iglan lagu ciyaari maraahuwan london iiskan weeye maraahuwan amar eeba mooye maraahuwan cabdi bile sidiisii maraahuwan anigaa u dheerayn maraahuwan markaasi tirsi olombigiibaad markaa u shakaysaa waxaan ku dhiirigelin markaasi tirsiga bilaabayaan kow labo saddex marna lugaysaa odhanayaan marka dambe way isweydaaranayaan hadhow alifbeetadii baa soo gelaysa alifbacdii bay ku baranayaan 10 iyo 10 bay madana way isweydaaranayaan marka say ugu ciyaarayaan way la qabsanayaan markii dambe waxay noqotay wax ay soo bandhigaanoo bandhigyo oo si fiican weliba kuwa maaragtay dugsiga sare baa ku fiican kuwaan waxay ahayn dugsi hoose way waxyaabaha kale suugaanta soomaalida hore ugu jiray ee aad ku dabaqday nolosha waddankan ingiriiska si carruurtii markaa ay ugu sahlanaatay inay fahmi karaan maxaa ka mid ah waa baaskiil bas laga dhigay maaragtay baaskiil bas laga dhigay oo waxay dhamangaale aardilay maaragtay waxa weeyaan soomaalida dad horaniyo oo aad la yaab u lahaa baa wax u sameeyey sababtu waxay tahay hadda dhegdheer oo kale markaad fiiriso waa cartoon because qof caadi ah waxbuu qashay haddii la yidhahdo ilmaha waxa ku dhacaya cabsi haddii qof dumar ah oo caadi ah yaa dalad qalata ah waxaad dareemaysaa in ilmuhu ay baqdin ka qaadayaan qof kastoo dumara marka si aysan looga duwo waad aragtay cartoonskana uma eka dad dhegdheer buu leeyahay marka si sheekadu ay ilmuhu naag dhegdheer unba iska eegayaan maogtahay dhegdheer fiiri dhegdheer dhibato dhulkii dhegdheer marka naag dhegdheer iska eegayay markaad fiiriso dad qalatada ahay halkan fiiri dabangaale aardile maaragtay marka la leeyahay wax kale loogama daran laha wax yar iyo wax weyn iyo in ay dhici karto hadduu dabangaale la dadaalo inuu aardilka dili karo yaraanta iyo weynaanta cabir baa maskaxda ah baa la korinayaa moogta sida meesha ka muuqata dadka saa u fakeray dad ma la yaab leh ba ahaayeen kullay dadkaasi dilay maaragtay xasan oo xuseen dilay maaragtay xasan xuseen galamaya maa sheexada waa isdilan u marinaya anigu waxaan ka dhigay meeshii dabangaalihiina waxaan ka dhigay baaskiil meeshii libaaxana waxaan ka dhigay bas ilaa labadaasi arkayaane baaskiil bas laga dhigay maaragteen oy 100 qof uuleen maaragteen u baxaaya gobolada maaragtay yaa barafaan qabo waa weeyaan soo socotulaya bakaylo ka weyn gari maaragteen bakaylo ka weyn gari timir aan bislaanayn maaragteen bisad biyo dabaal baran maaragteen arday aan wax baranayn maaragteen buugtiisa kala furin maaragteen misna baaska kow raba maaragteen number 1 class number 1 inuu gaar raba marka ma dhacay markii dabangaa markii baaskiil bas la arko noqday yaa waxa la heli doonaa arday asoo waxba baran oo buugtiisa furin inuu kowgalo waatay cabdilaahi waxaan jeclahay bal iminkana muuqaal labaad oo iskuul kale oo dhallinyarada aad u samaynaysay tababar xagga dhaqanka bal hadda muuqaalkaana in daawadayaashu ay nala wadaagaan Boys and girls, this song was called Manta Manta. We hope you enjoy it. Our next song is called Malahuan. This is followed by a dance. It means that the Olympic Games that we play in Somalia. We hope you enjoy it. Enjoy it. Our next thing will be something different. It will be the Somali alphabet, the 4 parts. We hope you enjoy it. It will be a girl called
Abdul from our Somali class will come and say it. We hope you enjoy it. This year's Somali class, we learnt the 4 parts of the alphabet. The main Somali alphabet is Ba, Ta, Ja, Ha, Ha, Da, Ra, Sa, Sha, Da, Aga, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. These are the short vowels. A, E, I, O, U. These are the long vowels. A, E, I, O, U. And these are the double consonants. Ba, Da, Ra, Ba, Da, Ga, La, Ma, Na, Ra. Our next song is called Balambalis. It is about a butterfly in our country. We hope you enjoy it. waata cabdilaahi waxaynu arkaynay caruurtii soomaalida ee iskuulka dhiganaysay inkastoo macalimadoodiina durbaanka ay u tumayso ay kala qayb qaadanaysa marka bandhigyadan oo kale aad u samaynayso caruurtii soomaalida dee wax kastoo ay dhaqankii iyo afkii ka wataanba waxa weeye way ku dhaamaan ardaydii kale dee ajnabiga ahayd ama ingiriiska ahayd ardayda kale sidee u xiiseeyaan ee quruumaha kale ka soo jeeda maya safta waxa weeyaan intii aan ku darnay waxyaabahan dhaqdhaqaaqa ah oo activitieska maaragta waxaa noqotay in haddiiba ay helaan wax ciyaariya ku soo jiita anugu 2 arday oo Soomaali ahayn baa ardayda ka mid ahaa oo sida ay u jecel yihiin iyo sida ay u rabaan midda kale siyaasad waxaa jirta iskuullada loo isticmaalo oo waxa weeyaan malahan waa la diiday wixii xirnaa oo community gooni ah waa cidii doonaynaysaa way soo iman kartaa oo ardada kale ah macnaha waa u furan yahay cid walba inay soo join garayso soo gasho marka waxa weeyaan 2 arday oo aan Soomaali ahayn baa dhiirigelinta aan ka helay labadaas hatta ciyaarta aan sameeyay waxbay midda wax ku dartay mid ka mid ah ilaa waa wax cusub hore u jiray waa wax markaa la sameeyo marka ayaga laftiyooda waxay ku leeyihiin inay qayb ka geystaan marka la soo bandhigayana dee waxa weeyaan wuxuuba haddayba ayagoo afka iyo hadalka danka ma lahan laakiin waxay u baranayaan si aan toos ahayn markii baa taa la leeyahay baa taa marka hore macno samayn mayso ciyaarta ku jirtaa laakiin waxa weeye sidii ay ku qabanayaan wax badan isma dhaamaan ciyaalka Soomaalida qaarkood ciyaalka Soomaalida galaaska fadhiya farqi weyn baa u dhaxeeya qaar baan wax quman ka soo wax yar ka sokeeya kuwa asnabiga way walaal caruurta halkaan kaga yara baxnaa dadkii waaweynaa baa yimi dadkii waaweynaa waxaad ku tilmaantay rar baa saaran baa tii dadku waraniya way soo reeray baashu waa la horta baashaan dadku inay dadka qaadaan maaha baashaan biida leeyahay loo soo gaabiyo biidu maxay tahay biidu marna waa mar waa baaranooy mar waa wax kale way subaxii soo qof iska raran wax ku rarta garan maysid yaad imaanaysaa oo agaha dhulka yaa geedo maraysa marka meequn baa tegaysaa meequn baa waadaysaa qof baa bacaynaya subax anu socodku waa booba way waxaad u baahan tahay iska rogtid baasha wax wadada laga qaadan ma baasha hayra jilc maxay tahay baasha biidu waxa weeyaan qofku saakay soo xalay fiican buu seexday saakay soo xalaysan buu soo toosay wax xalay hurdadii ugu yimid awoo kaale sheeg way waa waxaan stresska iyo wax iska raaranaa waa la raqad culays baa ku fulaya waxaad u baahan tahay marka geedni Cabdullaahi adoo iga raali intayna tanba weyba horta wax ka hadlaya xitaa lama arki jirin daqadka noo waalid baa laga yaab ugu dambeeyo maxaa ugu wacnaa kulata waliya de horta ayaan qorraxda wala xalayl qorraxda lama sheegin qorraxdu halkan markii la tagay GBD dhakhtarkii wuxuu ku leeyahay qorrax la'aan baa ku haysan vitamin D-ga iyo calcium ka kugu yar war maxaad u baahan qorrax aad war anu qorrax waa ka gaban jiray qorrax baa nacfile layma oranay arwaha geemida qorraxda idiga baan taagana dariimada ugu weyn Soomaaliyeed haysata waxa ugu yar oo Soomaaliyeed waa qorrax waa vitamin baa la yiraahdaa vitamin D iyo calcium qorraxda la yiraahdaa halka qorraxdi baa yar qofkii afkii oo ayaa hore nin baa uu yiri ayuu mental healthkii waxa waalida laga hadlay uu yiri ingiriiskiisu la dhacay oo uu yiri waxa ka hadlaysaan waa children waalidu waa children maxay tahay uu yiri waxa iska dhalay af orta luuqad la'aan marka ugu horeysa meesha ka bilaabatay garanaysaan buu qoladii
jeedinaysa casharku u sheegay Waay. wuxuu yidhi halkaa markaad timaado af aad aqoonin wuxuu yidhi de ummaddii waad ka xaniban tahay waa xaqiiqa marka meelaha jaadka lagu cunay meel waad ku carartaa Ha. ama qola aad taqaanid waa inaad cid ugu gasho cid waad u gashaa Ha. ilaa ciddii mujtamacii 60 milyan ah waad ka xaniban tahay waa run marka meel soomaali joogto is ogatadaan is ogolayn bay u bixiyeen soomaalida is eegatada eegatidaas waxaan ku leeyahay meelaha soomaali ma degan tahay hadduu ka waxay u guuraan beriska waa ka daba guuraya soomaali buu helinaya marka isaga ma ogola hay marka waa is eegatadaan is ogolayn way waa is eeganaya halka xaafadan soomaalida ku yaro hore waa kasoo wada guureen iswina waa kasoo guureen soomaali buu soo guuraya isma ogola marka wuxuu raadinayaa meelay degan tahay is ogatadaan is ogolayn way waa u gelayaa wuxuu ku leeyahay after chat baa ku xigay way chat iyo markii labadaas hadee marna aad cunaysa marna xagga aado kabacdi baa isla hadalkan iyo waxani jaldaren buu yidhi mogta waa arrintii waad ka hadlaysaa ninkaasi waa asiibay waa duldhigay mogta waxa weye marka baxashani qof asiibay marka u haysaa maaha taa keliya way mid baa waxa weeyaan biida waxaa haystaa maqna biida qiyaastaa jirta way oo qiyaas ah maxay noqonaysaa waxaad si qiyaasaysa aan jirin way waxaa jirta biida muranka way mid oo muran ka samaysan oo waxa iga soo qaaday ka murantay rabtaa way sabab la-aan marka waa 100 nooc marba labaa la soo gudbinaya wuxuu yidhi bacdan wuxuu yidhi boofiskan dad wareershiyo bacdan laysku xiraayiyo biidu waa 100 nooc buy way midka telefoonka markuu soo dhacay aan bareefad qabanayso bareefadka ma qabto way wuxuu leeyahay midka baqaya foonko waa telefoonkii markuu biib yidhaahdaba hadda baa lu fogeeyo aan bareefad qabano taasuu baladani maxay tahay buu leeyahay waa nuuc biida ka mid a waxaa muska qabto ilaahay baa faxane wax mu ka baqaya adan garanayn ha marka uu kule mid ka baqaya foonko aan bareefad qabano markuu biib yidhaahdaba hadda baa lu rogayo baladani maxay tahay ku barooranaya miyaan biida qiyaastu boowahaas iska fiigsan buu yidhi boowahaas iska fiigsan miyaan biida qiyaastu ku bayaan noqonin ninaan beenta aqoonin run bayaanana sheegin bushaba beenta aqoonin run bayaanana sheegin bushaba aan isa saarin oo hadduu war bilaabay waaga kugu bariye ya sheekadii la bilaababa waxa weeye asagoo bilowgeedii inuu joogay yuu kaaga warramaya mogta miyaan biida murmaysa ku bayaan noqonin kaasina ilaa waa murano war kastoo la bilaabo isagaa bilshaahid ahaa war kastoo la bilaabay u bilshaahid ahaa ninkaas marka dee wax walba adduunka bilshaahid kama noqon karti marka kaas waa biida muranka waa ninka wax wey ninka sidiisa kale qofka waa caadi waa labisan yahay laakiin wuxuu qabaa biida muranku qabaa biida qiyaasta biidu marka waa 100 nooc biida safar waxaa la isaga rogaa biida safar anugu meeshaas hadda waa weeyaan bii positive baa jirta laakiin o maashu ma wada aha negative biidu biikan wuxuu yidhi biidu mid baa positive aho waxay kaa wareejinaysaa waxyaabaha xuduudaha khatarta oo dhan baad ka foga distance baad siinaysaa nin baa gabar buu soo doonay markuu guursan lahaa yaa waxaa loo gabadha nin qabi jiray baa dhintay dhig ninkii waa carar meel alla meeluu ka baxay ilaa caaro wuxuu iska qiyaasay ninka muxuu dhintay buu leeyahay ya laga yaabay ninkaas inuu xanuun dhintay waa dhici kartaa adduunka aidis baa jira wax kastaa jira inuu intaa ku badbaado way dhici kartaa inay khayr uu meel wanaag uu ka heli lahaa oo wanaagsan inuu ka cararo waa dhici kartaa laakiin intuu balaayo igu dheeray inuu marka waa bii positive waa biida maaragtay marka bahashu waa 100 nooc maaha marka cudadii laga qaado taas waa rafkii waxaa la isaga rogaa meelaha horta b manage waxaa jira b management dad biida roga subaxi anugu meesha kormeer kafee waxa weeyaan waa rognaa subax walbaaba marka qofka lagu rogaana waa inuu iska rogi karaa maanta o dhan baa intaasu iska rogo subaxii marka lagu yimaado lagugu hurgufo nin waliba wuxuu sii daaya waanaad ogolaataa meelaha laga farsanayana waa ina taqaanaa meelo yaroo laga taataabtaa jira oo qofku inuu relief inuu shubo bahasha iska rogo soo hadhow cadaysinaho wixii iska rogay yuu baxaya caradii iyo wixii ka yar degan tahay marka ninkaas laftigiisa waa rarmayaa wuxuu u baahan yahay in xaafadii waa inu saa soo tegin asagoo rarada xaafadii tago dee xaafaddaa qarxaysa marka meelaha kale meelo lagu sii rogo waa inuu helaayo intuu iska waa inuu yaqaana qaabka marka bahashaasi waxa weeye qof waliba horta waa inaanan ka qaadin mental illnessku iyo mental health waa kala duwan yihiin mental illness waa waxa dadka xanuunkii weeye mental health waa si physical health mental health marka dadku waa cararayaan marka inta jirka ku dhacda baa maskaxda ku dhacda halkaasoo lagama sari karo dhiig yar baa ka imaan kara dee emergency aad aadaysaa
amarjisaas aad aadayso yaad haddii wax yar istiraadaad wax yaroo aad dareento qulub bay dhaheen mid baa kadeed u baxshay joornaalka kasma ku qora aad baan ugu hela waa nooc ka mid ah kadeedku qof baa kadeed qaba oo ma 5 daqiiqo ma taagnaan karo waa laga 600 su'aalood in 1 minute weydiiyo dhag waa kadeed marka waxaasoo dhan marka la isku daro adigoo iga raalliya dhulkii dhibaata looga yimi oo badanaa dee dadka keentay dhulkan hayntiina halkana dadkii lagu qaatay oo dee waaba kuwa lacagoo dira dadkii waddanka kaga yimaadeen waa dhiban yihiin laakiin maxay ku dhiban yihiin waxaan hayaa waa maxay warmay waa la raranyaa biidaa sheegaysaa biidaasaa jirta dadka xagga jooga lala sheegay xagga joogaana biiday qabaano biid waxay qabaan in yurub lacag taala ah halkan inay bad tahay oo ninkii maxamed kaahin feerol waa maqan Soomaa gabyaaga ahaa maxamed kaahin feerol oo tawaahi tagi tawaahida waxaan lahaa faluustuulan baad heli sabtaan ku arkaya caynkanay tahay ma moodayne waxa 10 kun tawarlaawo inta baayeegeen 30 qaar joogay baan toobo xaasilin tanna xogsay kama soo taraan taana laga waayay taflajiida iyo bay hayaan too khadibadeed taysmalaha taalo gooyati ma la xiray anigu la tabtoodii haddaan tacallimaya mar haddaan faaltuug tagay turug siraayn kolse hadduu tabtaan yaa ragii teedi saban joogay way tala xumaan xogsiga tani wajeeday taaliq wuxuu baray aabahay tooyay soo godol tiska odaya baan qeyntirada xoolaay intii aan tuljahan jaan wada ragiga tooray 10 taabo gacal baan rabaa tolo hal dhuf 10 taabo gacal baan rabaa tolo hal ha marka ma aha ninkaas wuxuu ku leeyahay xanja waad ku dhigsanaysaa tawaahi baa waxa la yiri dollar baad guranaysaa tawaahida waxaan lahaa fuluus tuulan baad heli annagu waxaan lahay London ta waxaan lahay fuluus tuulan baad heli ma yaalo dadka Soomaaliya joogaan ogaadaan marka biida malaha waxa kale lacag taalo dadka pressure-ka laga yaray waatay si caruurta iyo waayeelka ka dhaxaysay bay noo imanaynaa maxaa kuugu la yaab badnaa inta iskuullada aad maraysay caruurta Soomaalidu ay dhigtaan horta waxa ugu yaab badnaa ilmaantan maal anagoo badan oo ilaa 8 qof oo isla shaqeynayna baa maalin waxa la yiri asbuucan dhaqanka la baro iskuul dugsi sare ilmihi Soomaali kulli wax laga xisoonayo oo kale ayuu af Soomaali ma ya dhaqanka waa la yaabayeen ba nin ragi kamid ah wuxuu war aanu u dhabar adayno 6 waxa ka helo aanu ku wadno حقيقة هو أكيد نور مع الموضوع باقة 10 باقة وهو باقان يانا المهاسي والدين تا يا وحي ما عرفتي في صوماليا وضعك كغنمد يا رغنكي أفكي يا رغن كان وحب اللي هو وحو ضحي صدق كان لغاية ربضية يا المه أفي عن هذا والمه مسكح ذا بكوريس المه هنا كان سوري وحو قبا أنا وادد وين هكا يمد بانهاي إنا وضع الله إنا في عني وانغين لكن المه هاني دور إليه بكو إنا قاضي قحوتي أيضا ليه قحوتي oo wax wanaagsan aan ahayn anaga qaxootiga wax dhibaataan la malaha qaxootinimadu way nool iyo wadan waxbaan garanayna laakiin ilmaha yar saameyn bay ku yeelanaysaa marka hadduu wax uun ka garanayo afkiisii ama dhaqankiisii kalsooniga markuu galaaska fadhiyo hadduu wax gabay ama sheeko wadankiisii nin wax leh buu iska dhigayaa markuu laakiin xaggaana ka maran yahay kuwaana uusan waxoodii la wadaagin wuxuu noqonayaa asagoo dhan qof maaragtay abursan oo wareersan oo magaraysa ilmihii been ku sheegi maaye waan haynaa ajaladii waan keeni doonaa adduunka ayuu kale inaan arag ilmihii noocaas ahaa iyo macnaha raayada ay ka dhiibteen markuu 5 maalmood buu ahaa siday wax u koobiyeeyeen kuwani waxaan idin adduunka ma joogin 5 maalmood ka hor noqday quus baan taagnaa waxaan la wartay waxba ka soo bixi maayaane waxaan aad u jeclahay cabdilaahow oo runtii aan aad iyo aad dadka uga hela ka mid ahay suugaantan aad ku dabaqdo nolosha halkan tan caruurta mooye dadka waaweyn wax ma ka tiri horta dadka waaweyn maxaa jira mid always on baana waa iska daaran yahay waa on marka horta waxyaabaha looga dan leeyahay in suugaanta erey ingiriis waa ku jira markaad malayga maaragta xarig u tuuranayso wax yar baa la sii suraa haddaad rabto inaad qofaan af Soomaaligiiba eberka aad soo darto laba ingiriis haddaad ugu darto oo aad ku soo qabanayso waxba maaha sharciga Soomaalida afaf kala suugaanta lagu dhex daro ma ogola laakiin kale waa xeer gooyin aan u samaynayno London iyo meelahan marka always on baana oo yiri nimaan aadin gogosho aan indhaha isgelino hurda ay u oydo ku abaaday soo jeed ofba aan lahayn oo iswiishi khalkhalayo always on baana سويش يا غلغل أنتو كلي وير بل إلهي أمركيس ذاتك أقوى ما أعرف حني
nin iftiimayaanahay kii ayaama seexdana itaal waa ka roona haddana wuu yidhi oday weyn mar baanahay ugaasoo waxgaradoo dadka qaar adeecaa bal ilaahay amarkii arrin layga yeelana abidkay wax kama odhan aqoon-yahan mar baanahay iglan waayo joogo akadeemi galayoon ku ekayn hal meelo eega xaalad waliyo bal ilaahay amarkiis arrintaan anigu leeyahay haddaan aada xaafis erey sooma rogan karo oo inta baan ku washa ninkii da jaamacadaha iyo balaayada iyo balida ahaa shirkadaan u kaayo aqalaan dhisaayo aan agaasimaayo bal ilaahay amarkiis anfacooda lama arag taajir ooma baanahay arad baana liid buu ku leeyay ninkaasu waa calaaqalay mid kaloo waxaa jira sidii looga qabsan lahaa awr baan anuu samaysta london si suugaanta loo fahmo halkan ratiga awrta waati loo gabi jiro muhiimadda reer miyi degan u leeyahay awrka waad garan kartaa waa xaqiiqa noloshoodao dhan baa ku tiirsan marka in loo gabiyo oo loo maaragtay salsal loo sameeyo ratiga la yidhahdo saarsaar waan aagsanay iskarab saar ma lagu yidhi ma garanaysaa ratiga la guulaabiyo meesha ku jirtaa anigu bahal hooba la yidhaahdo hoobo maxay noqonaysaa hooba waa bahal yaroo dadka soomaaliya aad uma yaqaanaan laakiin aad u waxtar badan oo dadka aan kuga talin lahaa hooyooyinka dhowr ah baa wata waa bahal yaro shopping waxa lagu sameeya adeega 20 kiilo meelahaas qaada bahashan waa yeel ku jiitaan bahashan islaamaha inta badan jiitaan bahashan oo kala bahashan 4 sano jiidanay meesha maqaayada yarta King's Cross bay ka shaqeysaa islaantu waa sii qaadaa waa soo rartaa waa sii raraa baskan kula booda waa iska socotaa marka hooba ku taala marka awr baa ka dhigayo ratiga dhaanka ahaa oo rarnaa igama duwana ayadaaba ka hawl yar oo dabar iyo igama rabtay meel baan gashaa iyo baalin goob iyo igama rabtaba marka awr baan ka dhigayo si gabaygaasna dadku u dheegaan oo dadku deegaankan looga gabiyo aan joogno waayo horta waxa la yidhaha af waxa weeye suugaana af lahayn ma jiro suugaan aan af lahayn jiri mayso af aan deegaan uu ku nool yahay aan lahayn ma jirin afka iyagii suugaanta iyadu af bay lahayd afkaasuna deegaan miyi iyo xoolo iyo ku salaysnaa halkani ma jirto waxaa laga yaabaa haddaad hadda 20 sano hadlayso maalin qura inaad awr odhan afkaaga inayna soo marin waa runay haddaana dee tegin meelaha xayawaanka lagu hayo maxaad tirinaysa gabay aad tirin kartaa muxuu yahay marka waxa weeye haddaadan rii ka hadlin oo afkaaga rii soo marin oon awr soo marin oo aanas wax soo maxaad ku gelinba marka waa in halkan waxa weeye inaad 500 maalin tiraado tareen inaad tiraado bas inaad tiraado dhici karta marka waa in erayadan la Soomaaliya si Soomaaliga u jiro waa in halkan lagu abuuraa oo deegaankan lagu nool yahay gabayga lagu sameeyaa inta laga daayo deegaanka hore ku noolaa hawdiyo ku noolaa beesha London walaha dheer hawdka laga dhigaa si markaas qofkan ugu yeesho awood inuu halka markaa ku looga fidsado moogta marka anigu awrka soo qaado taasaan ka dhigay haddii dadku awrka haya baabuurtooda ka dhigi karaan moogta marka anigu hoobow artigii baan ka dhigay waan hoobow maxaan ahaa ma culus heerya kuu saaray hiirtii jarmaadada maxaad haydadii la jirtay hawlaana qaban karin maxaad ilaa hareer qaad holbon waa meeshaan degan holbon hilimadeedii maxaad ilaahun baa leysay hilib iyo canjeeliya maxaad soo hinjiday baasto oo hamuun dadkuu qabay ku tiri iga haraad beela hogaankaaga goortaan qabto saasaan loo qabtaa mugta hogaankaaga goortaan qabteen hooha ku idhaahdo haraadii adaan gaabis noqon habaaciya luude handadaada roorka maxaa hada lagu mood wuxuu leeyahay haween iyo caruurkaan ka didin oon isku halleeyo awrka qaar baabuura mugta markay saantii waa iska raraysa ilmihii baa oo leeyahay haween iyo caruurkaan ka didin oon isku halleeyo harka galay ee leyl dhexe misana kula hadaafay hayinkaan jeclaayo maxaan heesa kuu mari hoondiya tayotiya adaan hayna lagu siisan adigaan hawada qiiq ku biin lagu halaagma adigaa halkaa doonta mari hulal ciriiryoon adaan tigid lagaa haybinayn hawshii Livingston waa kii Livingston baa waagaas conjunction soo saaray adaan tigid lagaa hayminayn iyo hawshii Livingston oo laguma garaaxayo maartay wuxuu leeyahay goortuu shidaalkii huray uu ruuxna holi waay shidaal kacay leeyahay goortuu shidaalkii huray uu ruuxna holi waayay waa taa lagaa wada helo lagu hawlaa marka rag dhowr oo Soomaali ah hooba gatay baa jira waa ku mahadsan yihiin goortuu shidaalkii hore ruuxna heli waayey waa taa lagaa wada helo lagu hawlaa waa taa hayaa idin ari haatan loo kacay waa taa halkii aan daya horin maraysaa waa taa halkee laga helaa la isku haybsaday marka tusaale soo qoto haa dhalay nin haystiyo horweyn hawdku yahay Arab oo markuu hawlihii kala madliyay xarac qaba u seexday isagoon hanbaa birin hurdadu bogatay heelkeeda harubga labeen saaran tahay oo hareer yaala inta uu hirqaday haka hirkuna hamuungooy hammi iyo ninkaas qulub ma qabo hiftan iyo ciri hidii waas wuxuu diiday waa haybadlaha geele adiguna halkaas oo kalaad hoobow i tahay hooyiya intii hawl gabtaa ha u horeeyaane nimaad hiilu fidisoo dhan
waa kuwa haweenyahay oo inaad hagaagtay jeclaan horuma gaartahay hadal iyo dhammaantiis haddaan gabaygii soo horsho la'aantaaba hawl lama qabtee waana la hubaaye ha qabtire hudmana eebbaheen hadima kaa dhow waa taxqiy wala cabdillaahi waxaan jeclay inaynu kusoo gabagabayno barnaamijka sugaantaada laga gayoon maayo laakiin mid aad goordhow intii barnaamijka inaan bilaabin aad ii maraysay oo aad weliba igu tiri waa nooc cusuban hore loo arag oo aad wax ka weydiisay abwaanka weyn ee gaariya waa tii u magac bixi wuxuu yidhi soo galooti aan leenahay soo galooti maxay noqotay soo galoodka maaragtay maansada soomaalidu dhowr waa la tiriyaa marka de shariif gabay guurow buraanbur waa godod waa runa marka tani miisaankii gododkaa midna waa noqon weyda gaariya halkan ku kulanayo iyo martin waxaa yidhi dhowr baan tusa tanuu ka mid ahay mid kale waxaa jirta taladaa wax kuu tartee tartiibso tabiixeel adoon aqoon tacliinta taagaad ka soo dhacay hatiigsan taana wuxuu yidhi waa soo galooti midaan waa midaan kormeer kafe u tiri meesha horta koromar kafe anu kormeer baan u baxshay kormeer waa lasoo kormeeraya oo lagu imaanaya mogta marka waxaan yidhi kormeer kafe ma shiribka u egta kollay dadka soomaalida ahu anu waxaan aaminsanahay god jira inuu yahay laakiin dee cid kollay waa sir waa heli doonaa jawaabta ilaa boogsa lama wada aruurin wixii meel walba dalku waa ballaanaya markuu yidhi kormeer kafee ma soo kormeertay kafeega yaal ma soo kabootay kaftan iyo sheeka ma soo kifaax kamuunaheedu ma ku adeegay kumuyta agteeda ku yaal kamuunaheedu ma ku adeegay kobtay ku taalo kiinka rooska waay kamdan xaafiiskii konsolkii waa ka كوفل عدود كوفل وضي كوفل كوفل عدود كيت يويل كتب كواك وبرس عبري أقول لك كوفل عدود كيت يويل كتب كواك كوي كوراي كلاس كواك متكش كوفوري كوريري واك كي هو سواك هو مركا كوريري وبس كان دبل دك بس كور صار وعطاه مريا كي هو سوا عن الجوان كينجز خلاص تاني يكيلي تران كعاية ولا تران كعاية تاني يكيلي كجيدا باريس كلكو يمانا ككو باريس باهي waa midka internationalka lama isku ku yaal mabta wuxuu leeyahay marka wuxuu wax ku agtaadi ku yaalaan wuxuu leeyahay kabca ku aadka kariimka beedki akaadkeeda yaalle ku soo jibcayso waa masaajidkiina waa kugu dhigay yahay warkiyo kooban haddaan kafsiyo kudhan u waayay ku soo dhawaadhiyo kudhan waa weeye wax walba waa meeshii ku yaalaan waa meesha hooba ka shaqayso mabta hooba xarunteeda wey arrinta marka ugu weyn marka dambe aan ka hadli doono waxa weeye idaacadda marada huwa barnaamijyadeeda oo ku ugu weyn u yahay Soomaalida af Soomaaliga waa kan iska sii miicisoobay barnaamijka afwareen marka ka hadli doono dib u eegista asbuucan ereyadii ugu adkaysay oo saxaafadu isticmaashay yaa waxaan rabay hal erey bixin Soomaalida ku dirto ma idaacadda dhageysta maalin walba 500 oo madaxweyne halkaan bari wasiirka caafimaadka wasiirka garanmis ilaa warkii waa ku dhaafay makii Soomaaliland makii Puntland makii wasiirka caafimaad madaxweyne shan madaxweyne meel wajo ama marka talaan wax soo jeedin lahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada in loo bixiyo tuweyne waa way madaxweyne ma gaari laakiin ilaa 5 gobol 6 gobol isku xukuma waa tuweyne marka tuweynaha maamulkaas baa leeyahay madaxweynaha wadanka loo daayo kore madaxweynaha dalka Amerika gobornal isway madaxweyne ma jiro ereyga madaxweynena de afkeeni hore kuma jirna waa erey bixin la sameeyay waa erey bixin oo baalkii la sarrifay baad leedahay madaxweynimadu waa wax dhaqankeeni hore aan ku jirin marka in si xun loo isticmaalo ma oo halkan afafkan ka madaxweyne shirkadeed baa jira president marka laga hadlayo dhaqankeenu ku fariisan mayso way ayay dhaqankoodii ku fadhida awal martay marka tuweyne in la yiraahdo meesha wasiirada leeyahana ayaga xogayaasha in loo daayo xogayaha caafimaadka xogayaha waxbarashada maamulkaas in la yiraahdo haddii kale waxaan noqonaynaa afkuna hadduu wareer kaa galo jihada anaga lumaysa marka waa soo jeedin in tuweynayaal Soomaalida ka tashato wareer tuweynana aan isla eegno haddii la wareerka loo dhayo waagaag gabagabadii baynu joognaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdillaahi Xasan Kurweyne intaasna waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan gaarka oo kala socoteen Universal TV oo marti uu noogu ahaa abwaanka weyn ee Cabdillaahi Bootaan Xasan Kurweyne intaasi ayaanu barnaamijkan ku soo gabagabaynaynaa intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay nabadgelyo